Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa dhawaan sheegay in xalka amni ee dalka uu aad u liito, dawladuna ay difaac kaga jirto labada case control ee ku yaala magaalada Daafaheeda. Ninkan ayaa fariintan dhex geliyay xilli uu ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada soo aadan 2026. Diidmo xoogan ayay la kulantay qaybta khudbadiisa oo ay ku jirtay furimaha labada control ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah Axmed Macalin Fiqi ayaa weerar ugu jawaabay ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya. Inkastoo jawaabta Fiqi ay macno tirtay inuu ku lifaaqay xididnimo guura, Saacid uma habboonayn inuu halkan ka bilaabo isagoo 12 sano waxba ka oran xaalka dalka. Hadalkiisa waxa uu ku soo aaday iyadoo maalintaasi kooxda Al-Shabaab lagu laayay deegaanka Daynuunay. Haddaba maxaa fariinta Saacid loo dhibsaday ama loo diiday? Sugnaanshaha xogta. Dagaalka kooxda Al-Shabaab lagula jiro hadda ma yaala daafaha caasimadda, waxaa la isku hayaa Aadan Yabaal iyo Daynuunay. Sidaa awgeed, xogta ra'iisul wasaare hore lama jaanqaadin marxaladda dhabta ah ee amniga xaaladda dalka. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamar. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisa inkastoo eedo badan ay leeyihiin, haddana arrinta amniga ee Muqdisho shaqo fiican oo aad loo amaanay ayay ka qabteen. Inkastoo dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud naftiisa qiray in ciidanka dowladda furimaha lagu soo jabiyay, haddana Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu iska difaacay in haddii dagaalka guud laga hadlayo in ciidanka xoogga dalka ee libinta sare ay leeyihiin. Haddaba maxaa laga baran karaa diidmada ay la kulantay fariinta ra'iisul wasaare hore Cabdi Faarax Shirdoon Saacid? Sida ay dadweynaha u diideen qaybta labada case control ayaa furimo ah oo ay ku jirtay khudbadiisa ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. Haddaba sidee u aragtaa adiga?